عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان قيادة يوتيوب وانا idin salaamay. cashirkana maanta wuxuu ku saabsan yahay sida aan u isticmaali lahayn softwareka magaciisa la dhaho Aadaan Free Basic. Marka aadaan computerkaaga ayaad ku shubanaysaa, waxaad u isticmaalaysaa waqtiga salaada ayuu ku aadimayaa 5 salaadood oo Ilaahay faran nagu yeelay. Marka waxaad samaynaysaa browserkaaga ayaad furaysaa, kadibna waxaad ku qoraysaa meeshaas, waxaad ku qoraysaa aadaan kadib markaa aadaan ku qortid waxa ku soo baxayo website-kii aad ka download gareyned. marka hoos yar usoo yara deg, waxaad maadaa meeshaan ku qoran tahay oo hoos waxaa ka arkaysaa download.cnet.com, kaas ayaa si toosa kugu soo download gareynaya. ku dhufso. marka uu noo soo baxay waxaan fiirinaynaa versionkii ugu dambeeyay oo goorta la sameeyey November waxaa la sameeyey 2011 21 la sameeyey. wuxuun ku shaqeynayaa intaas window ayuu ku shaqeynayaa, intaana ka ahayn mega ayaan u maleynayaa, kale inta kale ku qoran yihiin bis waxaa samaynaysaa marka downloadka ayaad ku dhufanaysaa. marka dambe wax yar kadib wuxuu ku soo dejinayaa downloadka. markan waa kana uu noo soo dejiyay. marka wuxuu ku dhahay download bilow. isla markaa download bilowdidba horay ayuu ku soo dejinayaa, wax badan ma qaad. marka waxaan sameynaynaa browserka iska soo xir, kadibna open dekan. marka sidan ayuu kugu soo saarayaa. waxa laga baahan yahay ka doortid next, kadibna next kasii dooro. marka softwareka qaadkiisa ma badno, hasdhihin softwareka computerka ka cosleynayaa. waa software free oo asiga dhan waxaa waaye 9.4 megabyte, waa wax aad u yar waaye. marka haddii uu dhameeyey waxaana ka dhiman 1 le ka dhiman, waa kan uu ku shubo. markaa dar markaan ku shubid maysa ahayn, wuxuu noo soo sameynayaa, uu noo soo dejinayaa. kadib install ayaan leenahay. marka softwareka sidan ayuu kugu soo baxayaa, waa 4.2 next ayaa leedahay. kadibna next ayaad ka dooranaysaa, next kasii dooro. marka haddii uu dhameeyo finish iska dheh. marka waxaad dhahdaa yes dheh, sababtoo browserada ku xirmaan laba. okay na sii dheh. marka sidan ayuu kugu soo baxayaa. waxaa lagaaga baahan yahay marka inaad ka dooratid luqadda aad ratid inaad isticmaashid. marka haddii English tahay iyo haddii Carabiga tahay, haddii French tahay, Spanish, wadanka nooca ratid aad isticmaalisid adiga ayaad garanaysaa. marka aniga hadda English ayaan u dhaafeynaa, kadibna okay ayaan iska leenahay. marka wuxuu ku weydiinayaa qaybtan, wuxuu ku dhahay wadankaaga marka hore dooro. marka ani marka hore wadanka aan jooga ayaan dooranayaa. kadibna dhinacan ayaad imaanaysaa pagekan kale oo lagaga baahan yahay magaalada aad ka degan tahay in aad ka dooratid, sababtoo isma lahan magaalooyinka way kala duwan yihiin. dadka qaar laga yaabaa hal magaalo inay degan yihiin, macnaa ka soo qado kale ama Soomaaliya oo kale in magaalooyin badana leeyihiin. sidaas oo kale marka waxaa laga baahan yahay magaaladaada inaad ka dooratid. markaan aan joogno dhan saacadood way kala duwan yihiin. marka waxaa laga yaabaa markaan waxaan ku dhuftanaynaa marka meesha artid, kadibna waxaa lagaga baahan yahay save inaad dhahdid oo save garaysid. waxaa kaloo laga faa'iidayaa waqtiga salaada subax la tukado. inta ayaa lagu soo sheegayaa sida waqtiga la tukado ee qoraxda ay soo baxdo kale, duhurka, casirka, maqribka, cishaa. sidaas ayaa ku kala ogaanaysaa. waqtigu salaadana adimana sidaan ayuu kugu bilaabayaa. waxay kadib dhegeyso adinka la soco. marka adinka ratid waa haddaad ratid codkan waa kan waa Maka, Madiina, Al-Qudus, Egypti, no aadaan, mo aadaan. midka ratid ayaad dooran kartaa. Madiina haddaad ratid, Qudus, Egypt haddaad ratid oo kale nooca ratid ayaad dooran kartaa. marka softwarekan sidan ayuu ku anfacayaa, aad ayuuna muhiim u yahay. marka insha Allah khayr ayaan rajeynayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu, wajazaakum allahu khayran.